kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada galka wararka qodobada maanta aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah farmaajo oo maanta wajigabax kala kulmay beesha habargidir maxaa ka soo baxay kulankii maanta Puntland oo duulaan ku ah deegaan laga qabsaday dowladda UK oo saldhig ciidan oo weyn Soomaaliya ka samaysatay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusubtay waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya balse aan ku bilaabo dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo oo muddo ka badan sanad raadinayay in uu mar uu kulan la qaato beesha habargidir ayaa ugu dambeyntii fursad u helay in maanta uu kulan la yeesho hoggaanka dhaqanka beesha habargidir kulankan maanta ayaa waxaa beesha habargidir uu qaybgalayay 25 xubnood oo hogaaminayay gudoomiyaha guddiga beesha Abuukar Geni iyo ku-xigeenkiisa kulanka waxaa kaloo goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada beesha habargidir ee la shaqeysata farmaajo kulanka markii uu furmay ayaa hoggaanka beesha habargidir waxay u sheegtay farmaajo inuu isaga hadalka furo oo uu sheego beesha sababta uu yeeray maadaama isaga codsi uu ka yimid madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu beesha ugu yeeray 3 qodob kow in la wada tashado 2 inuu warbixin ka siiyo beesha xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo xal u helidda arrimaha galmudug farmaajo ujeedada uu ka lahaa shirka oo ahayd inuu ku qanciyo hoggaanka dhaqanka beesha habargidir inay ka qayb noqdaan doorashada uu doonayo inuu madaxweyne xaaf ku ceeriyo isla markaana qof isaga uu tuuqeensado nuxurka hadalkiisa ayaa ahaa in uu doonayo inuu doorashada u qabto dadka reer galmudug bisha soo socoto wararka naga soo gaaraya gobolka bari ayaa ku waramaya in ciidamada Puntland ay weerar ku yihiin deegaanka Afur ee gobolkaasi oo saacadihii la soo dhaafay ay qabsadeen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ciidamada Puntland ayaa haatan isku urursanaya degmada Carmo waxaana la sheegay inay dib u laabanayaan deegaankaas oo shalay ka soo baxeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dhankooda al-shabaab ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay doonayaan inay ka hortagaan ciidamadaasi xaaladda ayaa kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi xoogan ka soo wajahday deegaanadaasi oo ay ka cabsi qabaan in mar kale uu dagaal xoogan ka dhaco deegaankaasi deegaanka Afur waa deegaan istiraatiiji ah oo ku yaala buraha Goolis wuxuuna 70 kiiloomitir u jira magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kooxda al-shabaab ayaa marar badan weerar ka fulisay deegaankaasi kuwaasi oo waxyaalo xoogan ay ka soo gaartay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ugu dambeeyay ciidamada maamulka Puntland ayay ka wadaan deegaanada gobolka Bari iyadoo la sheegayo in ciidamo fara badan ay ka baxeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaasi oo ku sii jeeda deegaanka Afur ee gobolka Bari ka tirsan dowladda UK ayaa shalay xariga ka jartay saldhig lagu tababarayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada safaarada UK Muqdisho ayaa shaacisay in shalay oo sabti ahayd magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay laga furay saldhig ciidan oo dowladda federaalka lagu tababaro ciidamo safaarada dowladda Ingiriiska ee Muqdisho ayaa sheegtay in ujeedada saldhigaasi yahay sidii dowladda federaalka looga caawin lahaa in amniga dalka ay kala wareegto ciidamada AMISOM saldhigan waxa uu ku dhex yeelaa gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo kaas oo garoon military ah xilligii dowladda dhexe ka jirtay dalka sababta ay u hurgeliyeen saldhigan dowladda UK waxay safaarada ku sheegtay inay qayb ka tahay qorshaha la doonayo in dalka lagu saaro ciidamada AMISOM waxaana saldhigan lagu tababari doonaa qayb ka mid ah askarta la doonayo in ay amniga la wareegaan dowladda UK waxay sheegtay in saldhigan cusub uu dhameystiran yahay qalabkiisa kaas oo si casri ah loo dhisay waxaana durbo la geeyay saraakiil tababar siinaysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxa uu noqonayaa saldhigii afraad ee dalalka shisheeye ay ka dhistaan wadanka Soomaaliya waxaana saldhigii ugu horeeyay ee Mareykanka ka sameystay deegaanka Beledweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ku xigay midka Turkiga ee ku yaala deegaanka Jazeera ee duleedka Muqdisho iyo kan Imaaraadka Carabta ay ka sameysatay magaalada Berbera ee gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya guud ahaan intaas ayaa ku soo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka intaan warkaan oo kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo